maalinta gobolada galbeed ugu suntan maalintii madoobeed xasuuqii ay SNM ka geysatay 4 February waxaan waxaanu halkan u taaganahay waa maalin murugaysan waa maalin maxay SNMna waxay ka wada geysatay yar iyo waayeel waa laga dhirgisan yahay maanta gobolka Awda marka xafiinii inaga baxay waqtiga hawshaasi haleeshay xasuuqa inta laga loo geystina waxaan rabnaa hal daqiiqo inaanu wada akhrino faatixada li'annahu maanta way naga hoosayaan iyagu inagoo hawliheen iska wadanayna wayna horta hal daqiiqo kana faatixada u marnaa walaaliheen ay xasuuqday SNM salaan kadib maanta oon joogno 4 February 2019 waxaanu xusaynaa maalin murugo leh oo taariikh maguurta ah oo gobolkan Awdal ku suntan oo ay u geysatay jabhaddii SNM 1994 February taas oo ku dishay 1700 oo qof saacado gudahood dadkaasoo ahaa dadanan waxba galabsan masaakiina xamas ah ayna u eegin waa waayeel waa qof yar waa qof weyn waa qof xanuunsanaya oo ay la dulmartay xabad iyo kaarayaal iyagoo adeegsanaya taliskii Mingista oo hoggaanka ka ahaa ee ciidamadii Itoobiya marka maanta waxaan leeyahay waa maalin aan u baroordiiqayno Allah u naxariistee ummadda naga dhimatay 1994 February Allah u naxariistaan marka horeysa leeyahay waxa dishay gacan ka gardaran oo gacan ku dhiigla ah oo hogaaminayaan gacan ku dhiiglayaal oo jabhaddii SNM ay hogaaminaysay Allah u naxariistaan leenahay ummadaasi inta ka qayb qaadatay baroordiiqdanina waxaan leeyahay aad iyo aad baan u hambalyeynaya dhalinyarta waqtigoogii iyo maalkoogii iyo muruqoogiiba u horay waxaan leeyahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa waa maalin munaasabada ma ahaan doonto maalintii koowaad ee la xusay iyadoo dhici weyday dhowr iyo 20 sano in la xuso maalintani 4 February 1991 waxaan diyaar u nahay laga bilaabo maantoon xusayno 1999 laga bilaabo maanta waxaan samayn doonaa haddii rabbi nafta noo daayo inaan xusno 4 February 1999 sanad walooy gaadho waxaan diyaar u nahay inaan xuskaana aan xusno kadibna waxaan samayn doonaa haddii rabbi nafta noo daayo taalo aan ku xusi doono dadkii dhintay ee ku dhintay maalinta magacdoodii iyo ciday ahaayeen iyadoo ay kamid ahaayeen Allah u naxariistee maayarkii 80aadkii Maxamed Xasan Maaful niman badan oo noocaas oo magacyo gobolkan iyo taariikh ku leh ay ku geeriyoodeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo waxa weeyaan maalin dadka gobolada Awdal degan qalbigooga aad ugu jirta weeyi waa maalintii xasuuqil ay geysatay SNM ee ku beegan maanta February 4 1999 aan waxaan rabaa barinaan SNM iyo waxay geysatay dhibaatada waa laga wada dharagsan yahay maxamed baana ka hadlay hortay laakiin waxaan rabaa SNM maxaan ka dhaxalay bal taa inaan yar dul joogsadaan rabaa SNM markana maxaan ka dhaxalnay SNM iminka waxa jirta dadkii dhageysanaya SNM baan ahayo Soomaaliland baan soo dagaalamay war Soomaaliland uma soo dagaalamay siyaad barha dagaalanteen taasaan ka ornaya taadan inta ku dhaafo maanta waxa weeyaan dad badan baa ku dooda waa la heshiyo arrimihii dhacay waa laga soo heshiiyay haddii arrimihii dhacay laga soo heshiiyay waxa jira heshiisyo kala jira oo waxa jira heshiis lagu galay Burco 1999 oo ahaa war maanta dalka la soo celinayo in wixii dhex yaala si cadaalad loo qaybsado heshiisyadaasina maanta way bureen waxaanad arkaysaa reer markaa magaca sheeganaya SNM oo dhammaan wada qaatay xilalkii dhaqaalihii mashaariicdii militarigii wax walba qaatay taasina dadka maanta halkan jooga waa yar iyo weyn rool aqoonyahan wadaad dhammaan waa laga wada dhareegsay wadankanna hadii la wada yeelan waayo nin walbaaba meel sheer u leeyahay rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalibin أولاً وأنا السلام يا دمانتين ما أنت ومالين مرجله ومالين سامين بدن قلبية ذي نكون ربطي ومالين أينويني دت بدن وعادي أذانو شعلين ومالين أن أوران كرو قلبية ذات كأوضل دجن وحيكون هاي
maalin dhimbiil dab ah marka runtii waa maalin aynaan soo koobi karin shucuurteenna waa maalin aan odhan karno wakhti badan baynu ka seexanay laakiin hadda kabacdi waynu xusi doonaa runtii haddaan wax yar ku noqdo xasuuqii ka dhacay gobolka awdal tirada la sheegayaa waa ilaa 1700 iyo dheeraad dadkaasi waxay dhinteen muddo 24 saacadood gudahooda dagaalada waaweyn ee adduunyada ka dhaca ee waqtiyada dheer socda xataa lagama yaabo dad intaa leeg waqti kooban inay ku geeriyoodaan marka runtii naxariis darrada iyo xumaanta iyo qalbi adaygu halkii gaadhay uunbay ku tusinaysaa dadka reer awdal runtii waa dad aad iyo aad u sharaf badan waa dadka hoggaanka u haya maanta waddanka lagu naaloonayo iyo Somaliland lagu faanayo runtii waxaan odhan lahaa dadka reer awdal waa maalin xanuun badan waa maalin murugo badan waa maalin aynu weynay dad badan oo aad iyo aad u jeclayn waa maalin qalbigeena ku reebaysa xanuun badan inta in ka badan ma sii hadli karo markaan xasuusano dadkii aynu jeclayn waalidiinteennii walaalaheen caruurteennii waayeelkeennii macnihii waa maalin aan loo aaba yeelin wax xalaala iyo wixii dad meesha ku noolaa intii ajashoodu baaqi ahayd mooye aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadii lagu xasuuqay maalintii 4 February gobolada galbeedka Somaliland gaar ahaan aabahay iyo adeerkay iyo intii la dhimatay oo dhan waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo iyo inta halka joogtay aabayaasha agoonta aabayaashooda dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaan leenahay Ilaahay ha naxariisto maanta waa maalin xusuus iyo murugo mudan waa maalin aan marna taariikhda iyo maartay qalbiyeedena ka go'ayn waxa weeyaan adduunyada taariikhdu de waa shay la meelaawana waxaad maqashaa maalin walba dagaalkii koowaad dagaalkii labaad dagaalkii asxaabaha waxaad maqashaa xasuuqii Rwanda taariikhdu macnaha in la iloobo oo si dhib yar un laga haro ma waxaan soo jeedinayaa dadka maamulka haya hadda Somaliland oo aan leeyahay waxaan ku midownay oo la sheegayaa xilliga xasuuqa kadib odayaashii iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday goboladan inay qaateen mabda'a Somaliland oo ay ka soo qaadeen waxay yiraahdaan Soomaalidu xalay dhalay